qisadan waxay ka dhacday mid ka mid ah deegaanada miyiga ee dalka City Morocco waxaana ay qusaysaa labada nin ee walaalaha ah ee lagu kala magacaabo Cabdullaahi iyo Maxamed. Labadu waxay ahaayeen xaaslayaal haysta caruur. Cabdullaahi oo curad ah wax marka City u dhalay gabar lagu magacaabo Faadumo. Laba inan ee ka yar ee lagu kala magacaabo Axmed iyo Maxamuud. Axmed iyo Maxamed waa ay yaraayeen. Faadumo wax marka ay soo gaartay heerka jaamacaday dhiganaysay. aadna ayaan markaasaytu u jeclaa Cabdullaahi oo waxa markaasaytu uusan lahaa haddii ay Faadumo jaamacadda dhammayso kaalin aad u muhiim ah noloshaada markaa ka qaadan doontaa. Maxamed isagana waxa markaa u dhalay saddex wiil. Saddexdiisa wiil waxa markaasaytu ahaayeen dad waaweynaaday oo guursaday hantiye markaasaytu iyagana kala lahaayeen. Maxamed iyo Cabdullaahi waxa markaa dhacday in marar badan ay isku dhacaan oo sababta ugu weyn ee markaasaytu isku haysteen waxa ay ahayd in Maxamed maadaama Cabdullaahi hantida mas'uul uu ka yahay ka khibrad badan yahay. Maxamed waxa markaas ay jirtay in uusan ku faraxsanayn oo hoggaanka isaga marka inuu la wareego yuu doonayay. Xitaa markaas ay qoysaskooda iyo ilmahooda yaa markaa ku waaniyay xataa maadaama marar fara badan ay isqa qabsadeen oo hantida inay ku kala baxaan xitaa ay rabeen in ay kala baxaan. Uma suurtagelin oo marar badan oo markaas ay sidaas go'aansadeen inay ku kala dhaqaaqaan hantidana ay kala qaybsadaan Cabdullaahi iyo Maxamed uma suurtagelin. Sida City markaasaytu isaga socdeen oo ganacsigooda xitaa iyagoo niyadda wax isugu hayo wax markaasaytu ay ahaayeen in haddana markaasaytu weli marka ay wada jiraan. Cabdullaahi isaga dhankiisa waxa markaa la dhihi karaa wax weyn oo aanan ka ahayn in walaalkiis uu ku cadaadinayo in hantida marka ay kala qaataan. Culayskaas wax aan ka ahayn niyaddiisu kumaysan jirin oo farxad badan xoogaa kumuusan dareemaynin. Laakiin Maxamed isaga mar waliba wax markaa ay ka go'oneed waxa ay ahayd ama in Cabdullaahi meesha uu ka saaro ama hantida markaasaytu isaga qaybtiisa uu qaato sida City marka ay ku kala madax bannaanaadaan. Maadaama Cabdullaahi isaga hoggaanka uu ahaa Maxamedna marar badan xitaa markaa xaaskiisa uu cawday sida markaa dib laga ogaan doono. Waxaa markaa dhacday in Maxamed uu isku dayo meel Cabdullaahi walaalkiis ka weyn uu ka xanuujin karo in markaasaytu uu raadiyo. Xaaskiisii uu la tashtay maadaama marar fara badan uu cabasho uga gudbiyo walaalkiis uu ku dhahayo isaguun baa markaa hantida maamulo isagun baa hoggaanka haayo aniga markaa jaanis uma haysto wax marka aan samayn karo aan ku xanuujin karo Cabdullaahi ii sheeg. Maxamed xaaskiisa yaa waxa markaa maalin maalmaha ka mid ah iyagooda jooga ay ku waanisay in Cabdullaahi qaabka ay ku daciifin karaan ay tahay maadaama ay ogaadeen in gabadha Faadumo ee curadka u ah uu jecel yahay in gabadhaasaytii dil loo qorsheeyo sidaasaytina markaa qaabka ay ku xanuujin karaan sidaasaytii markaa ay tahay qaab bahalnimo ah iyo dil markaasaytii maalin maalmaha ka mid ah ugu qorsheeyeenoo maalin ay jaamacadda ka soo baxday maadaama ay garanayeen waddada ay Faadumo xaafadda u aado wax markaasaytii dhacday Maxamed xaaskiisa in markaasaytii ay soo kaxayso Faadumo oo ay ku tiraahdo alaab yaa raba inaa ila qaado meel baqaarka marka ah ila geyso. Faadumo xilligaasaytii wax markay dhahday eedo aniga waan daalanahayo hadda yaa markaasaytii jaamacadda cashiraanteedii soo dhammaadeen xaafadda u sii socdaa. Laakiin haddiiba iga codsatay dhahday Faadumo eedo in alaabtaaniitii marka aan kula qaada aad sheegayso baqaarka aan kula geeyo wax dhib oo saas uma arko daalkayga waan isaga dul qaadanaya alaabtaasaan kula soo dhammaynaya kadib aan markaasaytii xaafadda iska sii aadaya. Baqaarka loo soo wado Faadumo waa baqaar markaasaytii si gaar ah oo alaabaha hantidaaniitii dhaxalka ah ka mid ah laakiin sidaasaytii markaa looma adeegsado baqaarkaasaytii waxa iska ah baqaar duug ah. Maxamed yaa meesha markaa ugu sii diyaarsanayo gabadha adeerkeed ah waa ay isu soo raaceen eedada iyo Faadumo alaabtii markaa soo qaadeen. Baqaarka markii ay soo galeen yaa waxa markaa dhacday in Maxamed oo gabadha adeerkeed ahaa in Faadumo intuu ku booday uu ceejiyey. Faadumo isdifaaciidii ay gashay si nafsadeeda markaasaytii u badbaadsato. Waxa dhacday in eedadii markaasaytii Maxamed xaaskiisa ay qabato. Maxamedna sidaasaytii markaa uu ku sii ceejiyo ilaa iyo nafta ugu dambeyn Faadumo markaasaytii ay ka baxdo. Waxa halkaasaytii ay ku diyaarsadeen Maxamed iyo xaaskiisu waxa ay ahayd fuusto oo markaasaytii ay doonayeen in meydka ay ku qariyaano wax marka ay sii diyaariyeen xataa qaabsi ah markaa in fuustada biyo ay ku shubaano wax markaasaytii ay sameeyeen in meydka Faadumo madax fuustada ay u geliyaan wax marka ay islahayn haddii xitaa aad ceejisaan oo ay aad xoogaa naf inay ku dambeyso adinkoo markaa moodaya inay dhimatay Faadumo ay dhici karto in sidaasaytii markaa biyaha fuustada marka aad ku shubteen oo madax ugu rideen ha ku sii dhimato waa ay ku qufuleen. Waxaana Maxamed xilligaasaytii marka uu sii sameeyey baqaarkaasaytii duuga ah in maadaama isaga uu maamulka baqaarkaasaytii uu hayo baqaarkaas si saa looma isticmaali jirin in
وحilligaasaytii maxamed waxa uu sameeyey in baqaarkaasaytii uu qufulo badanna markaasaytii uu ku xiray si adag yuu markaa u waardiyen jirayoo muusan jeclayn xitaa maxamed in baqaarkaasaytii laga soo ag dhowaado waxyaabaha markaasaytii baqaarkaasaytii ku jiro in la ogaado aad yuu markaasaytii uga dagaalamayay maalinkaas la waayey faadumo waxaa markaasaytii dhacday in ehelkeeda ay isweydiiyaanoo sidee markaasaytii wax u jiraan gabadheena xilliga ay imaan jirtay ma isan imaanin waxaa markaa dhacday in 24 saac maqnaashaha faadumo marka ay ka soo wareegatay in waalidka markaasaytii faadumo dhalay ay booliska markaasaytii u tagaan booliska Britania markaasaytii soo sameeyeenoo waxaa markaa dhacday in Cabdullaahi gabadha faadumo aabaheed iyo xaaskiisa la weydiiyo gabadha ma iyadoo xanaaqsanay maanta baxday sidaanaytii ma dhici jirto in iska maqnaato waxa markaasaytii ay sheegeen oo ay dhaheen anaga gabadheena jaamacadda iyo markaasaytii aaday wax dhiba kuma ogeyn oo maanta dabeecadeedu waa iska deganeed waxa markaasaytii xoogaa yar hadal markaasaytii ku dhex daray meesha faadumo hooyadeedu markaasaytii dhahday aniga hal mid yaan isdhihi karaa oo gabadheeda maqnaanshaheeda in markaasaytii uu ka dambeyn karo haddii meelahanaytii anaga deriska iyo aan ka raadinay wiil xiriir la leh yaa jiro marar badan xoogaa ay iskhilaafi jireen qofkaasaytiina waa laga yaabaa in uu markaasaytii afduubtay boolisku waxa markaa ay weydiiyeen faadumo hooyadeed ninkaasaytii xiriirka la lahaa gabadhaada markaa ma taqaanaa magaciisa ma noo sheegi kartaa iyo meeshuu markaa degan yahay daalib iyo ku sheegtay guriga markaasaytii uu degan yahayna waa ay u sheegtay Cabdullaahi xilligaasaytii waa uu la yaabay in gabadhiisa markaa xaaskiisa faadumo hooyadeed ay sheegayso in gabadha nin xiriir la leh oo marar badan ay isku dhaceen ay jirtay waxaana ay sii sheegtay oo ay dhahday xitaa faadumo hooyadeed waxa markaasaytii ugu weyn isugu dhacayeenna waxa ay ahayd gabadheeda iyo ninkaasaytii in ninkaa guur marar fara badan uu ka dalbaday faadumo laakiin mar waliba dib ay u dhigi jirto oo ay dhihi jirtay aniga jaamacadda markii aan soo dhamay waxbarashadeeda ii dhammaato markaas ka bacdi aabahayga iga soo doonan doontaa guurkaas oo dib u dhigtay faadumo yaa waxa laga yaabaa in markaasaytii uu sidaasaytii markaa ninka dil ugu qorsheeyay waxa markaa la weydiiyey sidee markaa isugu dhawaayeen oo kale waxa markaa ay tilmaamtay faadumo hooyadeed in marka ay tiraahdo gabadheeda iyo inankaas ninkaa dilayba aan ku tuhunsanahay jaamacaddii isla dhiganayeen dhahday way soo baxeen booliska daalib gurigiisii imaadeen xilligaasaytii waa la qabtay daalib waa la xiray waxaana markaa la weydiiyey su'aalo maalinkaasaytii sidee markaasaytii faadumo iyo adiga xiriirkeeni u ahaa waxa markaa uu sheegay daalib u dhahay aniga maalinkaasaytii subaxnimadii faadumo waan wada xiriirnay caadiya markaasaytii iska ahaydoo wax xanaaqana nama dhex marin aniga gabadhaasaytii waan jeclahayoo waa qorsheynaya inaan guursado laakiin arrinkaniiti in la weysan yahay iyo tuhuno in markaasaytii ay jirto aniga inaan ka dambeeyo inaan dhibaateyn karo waxaasaytii ma jiraanu dhahay waxa markaasaytii dhacday in baaritaanadii lagu sii xoojiyo daalib su'aalihii iyo baaritaanadii markii lagu dhameeyey waa la iska soo daayay maadaama wax caddaynoo weyn xilligaasaytii aanan lagu haynin laakiin waxa dhacday in qoyska faadumo ay arrintii markaasaytii qaraabadii sii ogeysiiyaanoo maadaama gabadha ay maqan tahay waa la ogaaday oo qaraabadii waxa markaasaytii maadaama dad hantina haysta ay ahaayeen in xilligaasaytii baaritaanada dadka ahaayey ee booliska ah iyo dowladdiiba markaa inay culays ku saaraan in gabadhooda qof uun markaasaytii loo soo xiro caddayn uun markaasaytii in meel gabadhooda marka ay ku dambeyso in la keeno in qof lagula xisaabtamo sababta gabadhaasaytii ay u maqan tahay meesha ay ku dambeyso maadaama dadkaana dad wax iska aysta ay ahaayeenoo daalibna noloshiisa xoogaa markaasaytii waxa iska ahayd qof iska normal ah waxa dhacday in daalib mar kale in markaasaytii la soo xiray markaaniitii waxa uu wajahay daalib waxa ay ahayd xukun in maxkamad markaasaytii la horgeeyey isagoo kiis tuhun ah markaasaytii wax caddayn aanan la haynin in booliska markaasaytii u dabagelayeen booliska waxyaabaha marka inta baaritaanka ay ku jireen daalib ay sameeyeen waxa ay ahayd in gurigiisa qaraabadii markaa daalib u dhoweedo idil in markaasaytii guryahoodii la tegay beere ee lahaayeen lasoo fiiriyey wax caddayna markaasaytii waa laga soo waayay laakiin daalib maalin maalmaha ka mid ah waxaa loo soo saaray maxkamadda xukun ah in uu wajaho qof lagu tuhunsan yahay sababta in gabadhaasaytii xiriirka uu la lahaay in la waayey maalnimadaasaytiina markaasaytii uu dhahaayay ani subaxnimadii waa aan la xiriirayo intaas keliya caddayn markaasaytii looga dhigaayay waxa dhacday in kiiskii go'aan maxkamadda ay qaadato in iyadoo tuhun keliya meesha markaasaytii uu yaalo in daalib muddo 20 sano xabsiga markaa lagu xukumo waxa dhacday in qoyskana markaasaytii faadumo sidaasaytii marka ay ku aamusaano maadaama tuhunkoodii ahaa in daalib marka uu ka dambeyn karo in meeshasaytii marka uu maadaama xukun ku dhacay
sidaasaytii marka gabadha waxay aamineen qoyska Faadumo iyo qaraabadiiba in gabadhoodii marka ay geeriyoto Daalib uu dilay xukun 20 sanana markaasaytii lagu xukumo sidaasaytii arrinka marka uu ku dhamaaday muddo 4 sano ayaa marka kasoo wareegatay maqnaashihii Faadumo Cabdullaahi gabadhiisa maadaama ay nolol iyo geeri lagu waayay waxa dhacday in niyad ahaan xilligaasaytii culays fara badan uu dareemay heer xitaa shaqooyinkii iyo maamulkii uu hayay uu wadi kari waayo uu gaaro xaafadda markaasaytii uu ku soo aruuray waxa dhacday in maamulkii Maxamed markaasaytii uu la wareegay Maxamed oo sidii markaasaytii uu doonayay 4 sano isaga ayaa markaasaytii maadaama Cabdullaahi xaafaddu isaga aruuray noloshiisii gibi ahaanbana markaa ay soo xayirantay Maxamed isaga ayaa hawshii markaasaytii kala waday maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa dhacday in Maxamed markaasaytii uu u yimid in Cabdullaahi uu ku dhaho in Cabdullaahi oo adiga muddo 4 sano ah yaa sidaaniti markaa iska tahayo anigun baa ganacsigii kala wado adiguna faa'iidada markii ay sanadka soo go'do waa timaadaaho hantidii kala baryaa markaasaytii qaadataa sidaaniti macquul ma noqon karto aniga culaysaadkan ganacsiga aniga keligii inaan kala wado hantidan ay la qaybsato faa'iidada markii ay soo baxdo suurtagal ma noqon karto haatan waxa markaa aan doonayaa u dhahay Maxamed in aad codsi ila qorto oo dowladda markaasaytii aan u gudbino sidaasaytiina markaa hantida aan ku kala qaybsano Cabdullaahi waa uu go'aansadayba markaan in uu hantida markaasaytii la kala saaro waxa uu dhahay haye Maxamed walaalkaygiyo haddii adiga aad sidaanit soo go'aansatay aniga waan kula qaatay uu dhahayo codsiyo markaasaytii xilligaa dowladda ay wada qorteen in hantida markaasaytii loo kala qaybiyo Cabdullaahi go'aankiisa ugu dambeeyay waxa markaa uu ahaa maadaama gabadhiisa Faadumo uu waayay wiilashiisa yaryarna hantidii ganacsiga aysan kala wadi karin oo maamuli karin waxa markaasaytii uu islahaa hantidan qaybna iyaga meel u dhig sidoo kalena qayb kalena adiga qaado noloshaada iyo qoyska noloshiisa ku furdaamay intii markaasaytii nolol Ilaahay kuu sii daayo waxa markaa dhacday in maxkamadda codsiga loo soo gudbiyo in hantidaniti la kala qaybiyo dhaxalka Cabdullaahi iyo Maxamed ka dhaxayso in la kala qaybiyo in markaa go'aan ay ku gaaraan waxa dhacday in hantidii marka la kala qaybinayay baqaar duug ah oo inta badan aan la isticmaalin oo baqaarada dhaxalka markaasaytii ka mid ahaa dhaxalka marka la qaybinayay in Cabdullaahi dhangiisa marka uu soo raacay Maxamed maadaama baqaarka uu ku dilay gabadha adeerka markaasaytii uu ahaa Cabdullaahi uu dhalay si Cabdullaahi u daciifina falkanaytii uu sameynayay baqaarkaas markii Cabdullaahi dhankiisa hantida la raacinayay ee martay Maxamed kumuusan farxin waxa markaasaytii maxkamaddu uu ka hor dhahay sidaaniti markaa sida hantidina loo qaybiyo aan doonaya ma ahan aniga hantida qaybta marka la isoo raacinayo ha noqoto baqaarkaasaytii in uu ku jiro maxkamadda waxa markaa dhahday Maxamed sida adiga aad rabto dhaxalka looma qaybinayo sida markaasaytii sharciga anaga aan go'aaminay hantidan aan u kala qaybinay sidaaniti markaa noqonaysaa waana ku qasbantaa in amarkaniti aad qaadato Maxamed waxa markaasaytii u dhahay maya suurtagal ma ahan Cabdullaahi wax walbo ha loo saxiixo laakiin aniga baqaarkaasaytii waa in marka aan helaa baqaarkaasaytii muhiim uu yahay arrintaas waxa marka ay noqotay xitaa in qaadiyaashii xukunka gaaraya dhaxalka la qaybinaya xitaa arrinkaniti in ay la yaabaan in Maxamed hantida dhan uu ka dooranayo baqaarkaasaytii duugaaho wax micno badan xitaa markaasaytii aan ku fadhino inta badan aan la adeegsanin waxa markaa dhacday in Maxamed laga diiday oo la dhahay sidaan hantida loo kala qaybiyay iyo ahaanaysaa Maxamed kumuusan qancin waxa markaa dhacday in maamulka baqaarkaasaytii weli markaa uu iska sii haystay oo walaalkiis Cabdullaahi uusan ku wareejinin Cabdullaahi codsiyo mar kale dib u qoray muddo markay xoogaa ka soo wareegatay xukunka maxkamaddu maadaama Maxamed hantidii uu soo wareejinayay baqaarkaasaytii aysan ku jirin waxa dhacday in markanita Cabdullaahi uu ka codsaday maxkamaddu uu ku dhahay aniga boolis hala ii daba dhigo iyo dad ii fuliyo xukunka maxkamadda marka ay soo gaartay dad fulin ah oo booliska marka ay ka mid ahaayeen yaa la soo raaciyay Cabdullaahi baqaarka markii la yimid baqaarka waxa marka ku xirnayay qufulo si adag markaasaytii loogu xiray baqaarkan duuga ah in qufulo badan lagu xiray si adagna albaabkiisa marka uu u xiran yahay Cabdullaahi iyo sidoo kale dadka fulinta ee booliska marka ay ka mid ahaayeen waa ay la yaabeen Maxamed xilligaasaytii kumuusan farxin in go'aankaasaytii booliska ay fulinayaan xukunka maxkamadda waxa dhacday in baqaarka markaasaytii la furo booliskuna waxa marka ay ahaayeen haddii baqaarka hantida taala ay hanti ku jirtaba in Cabdullaahi markaasaytii maadaama isaga uu leeyahay in hantidiisa marka lagu wareejiyo gudaha markii ay galeen booliska urur aad u qarmuunaya xilligaasaytii ka hor imaaday maadaama ay booliska garanayaan urarka dadka la dilay ee meelaha markaasaytii lagu qariyo kale ee waqti marka qarmuun ka soo baxayo meeshaas oo kale waxa dhacday in booliska marka ay baarbaaraan
baqaarkii xilligaasiiti waxay ku arkeen fuusto bir ah oo xilligaasiiti dhex taalay muuqeedina markaasiiti u isbedelay maadaama muddo 4 sano ah qof meyda marka uu ku dhex jiray waxa markaasiiti booliska ay sameeyeen in fuustadii marka xilligaasiiti ay furaan urkii ur ka xoog badan yaa markaa ka hor yimid waxa marka ay ka soo bixiyeen gudaha qof booliska xilligaasiiti ay ku qiyaaseen qof da'aada 20 gelaya qof dumarana markaasiiti inay tahay cabdullaahi maadaama markaasiiti uu booliska ka maqlay oo baaritaanka lagu guda jiray kumuusan farxin oo xogaa aad ii u murugooday laakiin siya qalbigiisa u taabatay cabdullaahi in la dhahayo gabar da'aada 20 gelayso iyo halkaaniiti meedkeeda fuustada laga dhex helay waxa markaasiiti xilligaa boolisku uu ku dhahay amay gabadheeda tahay hala ii baaroo kale oo maadaama gabadheedana da'aada 20 ay ku aadanayd qof dumarana ay tahay meedkaaniiti aad baaritaanka marka ku sameynaysaan oo aad sheegaysaan waxa dhacday in meedka xilligaasiiti booliska ay qaadaan oo sheybaarka loo diro si loogu barbardhigo cadaymanka DNA-da ee Faadumo waxa markaasiiti halkaa ka dhacday in meedkaasiiti la xaqiijiyo in Faadumo markaasiiti ay tahay daalib 4 saniyo haddan xilligaaniit sii xiran yahay inankii xiriirka kala dhexeeyay Faadumo waxa markaa dhacday in booliska arrintaniiti weji kale ay la yeelato maadaama qofkii ay Faadumo u xireen ee 20 sano xabsi loogu xukumo iyadoo cadayn aan loo heenin 4 sano uu marayo in meel kale oo qofka siiti raadkiisa uusan bategin in meedkii Faadumo markaasiiti ka soo helaan xogaa waxa markaa ay ku noqotay arrintaasi arrin fajaca haatan markaasiiti dhacday in Cabdullaahi iyo Maxamed labadoodu in baaritaan markaa booliska marka ay ku sameeyaan oo isweydiiyaan oo isdhahan labadan qof maadaama hantida isugu darsanayd yaa ka dambeyn karo Cabdullaahi xilligaasiiti waxa uu isku difaaco u dhahay aniga gabadhii sidee u dilayaa sidoo kalena baqaarkan xitaa meedka gabadheeda laga helay anigu maba imaan jirin uu dhahayo xitaa xilligii shaqada markaasiiti aan joogay ma ahayn baqaarkaaniiti baqaarada aan maamulayo Maxamed yaa gacanta ku hayay waxa markaa aad weydiin kartaan shaqaalaha kale hadaa weydiisan xitaa waa ka ogaan kartaanoo Cabdullaahi waa uu iska difaacay in baqaarkaasiiti maamulkiisa gacanta ku hayay waxa booliska xilligaasiiti ay sameeyeen waxa ahayd in shaqaalihii markaa beerta ka shaqeynaya ay wareystaan oo ay dhahaan baqaarkaaniiti maamulkiisa yaa hayay waxa dhacday in shaqaalaha xilligaasiiti ku dhahaan Maxamed yaa hayo Cabdullaahi meeshaan ma imaan jirinba hadalkaasiiti waa u xaqiiqsamay oo isku difaacay Cabdullaahi in meesha markaa uusan imaanin oo baqaarkaasiiti maamulkiisa uusan haynin Maxamed maadaama haatan shaqaalihii xitaa ay ku markhaati fureen waxa dhacday in isaga dhankiisa marka la weydiiyo isaga markaa miinka uga cuskaday wuxuu dhahay aniga waxba kama ogi meeshaan waa uu is adkay maagay waxa markaa dhacday oo kiiska xitaa soo galay Cabdullaahi xaaskiisa iyo Maxamed xaaskiisa Cabdullaahi xaaskiisa xilligaasiiti waa iska yara jahwareersaneedoo maadaama gabadheedii la waayey oo meedkeeda haddana lasoo sheegay xaaladeedu waxa markaasiiti iska ahayd xataa xaalad aad u qasanoo waraysi badan xilligaasiiti lagaba qaadi karin waxa dhacday in booliska Maxamed xaaskiisa ay weydiiyaan oo ay dhahaan sidee markaasiiti wax u jiraan waxana xilligaasiiti xogaayo loogu yar hanjabay in haddii xaaska Maxamed la dhahaya haddii aad wax qariso waxa laga yaabaa in Maxamed uu adiga kiisku idin intuu kugu soo wareejiyo adiga markaasiiti aad falkaaniito idil mas'uuliyaddeeda marka aad qaadato si marka aysan u dhicinoo adigana marka aad isku badbaadiso xogaa wixii run aad ogtahay noo sheeg xaaska Maxamed xilligaasiiti waxa marka ay tilmaamtay in Maxamed ay dhici jirto in marar badan uu soo cawdo isagoo ka cabanaya in walaalkiis Cabdullaahi uu ka khibrad badan yahay maamulka isaga gacanta marka uu ku hayo isaga marka uu doonayo Maxamed in kaalin uu helo in ganacsiga iyo maamulka idil hantidaasiiti isaga uu qabto uu doonayo walaalkiisna meesha marka uu ka saaro aniga yaa waxa kula taliyay dhahday Cabdullaahi meel uu ka xanuunsan karo in marka aan ku dhufano oo ah gabadhiisa Faadumo maadaama uu jecel yahay in gabadha markaasiiti aan ka dilno qorshaha dilka aniga yaa soo maleegay ay dhahday Maxamedna waa uu fuliyay aniga markaasiiti waa aan caawinayay sidaasiiti marka wax ku dhaceen daalib markii arinta halkaaniiti ay marayso inankii xiriirka la dhexeeyay Faadumo waa la iska soo daayay waxaana markaa dhacday in Maxamed iyo xaaskiisa maadaama runtii la ogaaday in iyagu markaasiiti kiiskii uu ku soo wareegtay xukunkooda waxa markaa uu noqday in maxkamad markaasiiti ay wajahaan xabsi daa'in ahna in noloshooda markaasiiti lagu xukumay haatan Maxamed hantidii markaasiiti walaalkii uu noloshiisa mugdiga uga dhigay ee gabadhiisa marka uu ka dilay haatan gacanta kuma hayo sidoo kale isaga iyo xaaskiisa wax marka ay noqdeen in xabsi daa'in noloshooda marka ay qaataan daalibna wax markaasiiti uu wajahay xukun isaga markaasiiti uu mas'uuliyadiisa uusan lahaynoo 4 sano kamid ah noloshiisa waa ay qasaartay markii banaanka uu u soo baxayna
waxyaabaha ugu badan ee xanuunka uu wajahayna waxa markaasayta ay ahayd in gabadhii marka uu jeclaayo mustaqbalka uu ka doonayo inuu ka dhigto in gebi ahaanba adeerkeed nolosha markaasayta u dhaafiyey arrintan cabdulaahi iyo xaaskiisa marka ay kusii noqotay iyo qaraabadiiba qaracanba in gabadhii meeshii ay ka filaayeen oo ah in inanka xiriirka kala dhexeeya Faadumo uu dilo ay tuhmayeen in meel ka dhow arrinta markaasayta ay timaado iyo ka argagax badanoo maxamed kamaysan filanaynin in heerkanayta nolosha markaasayta uu gaari karo waa ku maasan tahay ilaa dhammaadka halkanayta haddii aad nala soo gaartay haddii aad jeclaysanayso qisooyinka sidan oo kale marka inaan soo badino fadlan nagu taageer in muuqaalkanayta alla garasiino sheer garaso si janalka u faafo meel dheer uu gaaro muuqaalkan muuqaalka xiga noo balana